dhalinyarada ganacsatada dhibaatooyinka inta badan caqabada ku noqdeen inuu ganacsigooda si kobco waxa ku ka noqonaysa wata oo financial management kala inay maamuli kari waayaan waxa weeyaan finance-kooda ay maamuli kari waayaan iyo dakhliga soo galaya ama lacagaha soo galaya kharashaadka ka baxayana yacni si caqli leh yacni ay u bixin kari waayaan marka kharash kasta oo ka baxaya waa inuu macno la kaaga baxaa shayga weyn ee ku qiimeynaysaana waa inuu yeeshaa waxaan ROI waa inuu yeeshaa waxa ROI-ga la yiraahdo ama qaacida ROI la yiraahdo oo noqonaysa return on investment shayga gelisay ama lacagta gelisay ma soo celinaya tusaale kale dad $100 ku bixisay inaad marketing ku samayso exactly like waa in $100 aad ku bixisay marketingku uu kugu soo celin karayaa ugu yaraan $200 bas $300 markaasoo kale waa return on investmentkiisu laakiin wax isku halaynaya oo kharashka gelin karaysa ama lacagta gelin karto qodobad ay aad muhiim u tahay marka laga yimaado financial management ama yacni maamulka lacagta oo ah shayga ugu badan ay dadkeenu amba ganacsatada oo ganacsiga ku jiraan amba wax weeyaan yahanin dhibaato weyn baa ka haysta yacni bulshadeena la eegayo maamulka lacagta way samayn karayaan way samayn yaqaanaan laakiin lacagta waxay maamul yaqaanaan waxaad arkaysaa qof kale bishii tusaale kale ku door bay soo gala ku ka door haddana iguma filaa okay baahiyaha horta maamulku marnaba ma dhamaadan lacagtaadu si kastoo u badan tahay haddana baahidaada marnaba ma dhamaystiri karto yani oo markay lacag soo gashaba lacag macnaheedu maaha in iyadu qiimo beelayso laakiin standardka yacni noloshaada ayaa marba marka dambaysa yacni si kobcay lacag soo gasho iyo expenseskaga yacni ayaa badanaya marka shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan kolley intiina badan wada akhriyeen buugga la yidhaahdo Rich Dad Poor Dad wax kalaba kama hadlo waa in yacni aqliyada lagu tababaro in uu qofku noqdo qof awood u leh inuu lacag samayn karayo lacagtana maamuli karayo very simple marka financial management ka nimaado qodobka labaad ganacsiga yacni ganacsiga hadda qof ganacsada tahay lama hadlayo dadka ganacsiga bilaab waxaan la hadlayaa dadka ganacsiga ku jira ee iminka gacanta ku haya yacni waxa weeyaan doonaya inay kobciyaan ganacsigooda marka laga yimaado financial management aba maamulka yacni lacagaha qaybta labaad ee aadka kuu saacidi karaysa waxa weeyaan in aad adigu ka shaqeyso naftaada yani qodobkan aad baan inta ugu celceliyaa naftaada inaad ka shaqeyso markaan leeyahay waa inaad fikradaada ka shaqeyso waa inaad caafimaadkaaga ka shaqeyso waa inaad ka shaqeyso waxa weeyaan energy-ga iyo tabartaada waayo intan oo dhani waxaad ku bislaysanaysaa ay kuu sahlayaan inaad ku gaadho hankaad doonaysa yacni inaad gaadho nolosha ood doonaysa yacni inaad xaqiijiso inay noqoto ganacsi qofka ganacsiga muxuu kaga baahan yahay wuxuu kaga baahan yahay shaqo shaqadii maxay u baahan tahay energy ganacsiga muxuu kaga baahan yahay wuxuu kaga baahan yahay ilaalin waa inaad yacni aqoonteed lahaata waxa weeyaan lagu ilaalinaya qodobka yacni saddexaad ganacsigu wuxuu kaga baahan yahay joogteyntu si ay suurtagal u noqoto waa inaad tabar heshaa يعني tabar saad u heshana caafimaadkaaga weyn wanaagsanaada marka dhalinyaro badan qaladaadka ay galaan waxa weeyaan naftoodii ku iloobaan ganacsiga inta ku jiraan marka adigu cidib ganacsigu ku socda waa adigu haddii aanad awood lahayn laakiin waxa weeyaan caafimaadkaaga ka shaqeyso ganacsigaagaasina ma soconayo ganacsigaagu waxa weeyaan haddii waxa weeye adigu aanad caafimaad qabin horumar sidii ku gaari karaya laakiin aad buu adag tahay cidda ka shaqeynaysaana waa isla adiga marka qodobkaasna waa qodobkaas marka waa inaad adigu naftaada ka shaqeysaa ha fikirkaaga hadduu qalloocsamo oo negative noqdo waxa laga yaabaa ganacsigaa intaad ka niyadjabto inaad wax weyn isdhiibto oo ganacsigaasina burburo marka qofka ganacsatada amba dhalinyarada yacni inta ganacsiga ku jirta qodobadani waa qodobo saacidi karaya qodobka saddexaad ee aadka muhiimka waxa weeyaan in aad barato digital marketing iyo qaabka u shaqeeyo amba yacnihi waxa weeyaan marketingka casriga amba suuqgeynta casriga iyo qaabka u shaqeyso because of social media imika wada aragteen like waxyaalaha imika cusub ee soo biiray waxaa kamid a waxaa la dhahdaa AI-ga amba artificial intelligence-ka marka waa inaad adeegsan karaysaa AI-gaad adeegsan karaysaa oo uu adiga yacni ku adeegi karaya marka AI-gu waxa weeyaan waa shay adiga kuu sahli karaya inaad si fudud u samayso shaqo waqti badan ka qaadan lahayd that's it marka taasina aad bay muhiim tahay marka digital marketing inuu qofku barto iyadana yacni waa mid aad yacni u saacidaysa qodobka kale ee afraad ee wadamaya wuxuu noqonayaa waa in aad markasta yacni isku daydaa in aad wax ka barato caqabadaha yacni kaasoo wajaha ganacsiga suuq yaraan baa kusoo wajahaysa wax kusoo wajahaya waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed lacag yari macaamiil yari baa kusoo wajahaysa waxyaalahaas dhan kusoo wajahaya aba shaqooyin waxa ka ahaadaan caqabada dhanka operationka amba ha ahaadaan caqabada xagga dhaqaalaha ama caqabada shakhsiyaha ha ahaadaan waa inaad mar walba ka dadaashaa inaad wax ka barato